السلام عليكم soo dhawaada saaxiibayaal waxaad ku sirbataan cashar aad iyo aad u xiiso badan oo ku saabsan waxaan maanta casharkan ciwaan uga soo dhigay topic about the Independence Week of Somalia mowduuc ku saabsan isbuuca xorriyadda ee waddanka Soomaaliya saaxiibayaal waxaan ka codsanayaa casharka inaad like gareysaan maxaa yeelay waqti iyo juhdi badan baan ku soo bixiyay haddii YouTube-ka aad naga daawanaysana in aad kanaalka subscribe gareyso casharkan aad like gareyso Facebook haddii aad naga daawanaysana in aad na soo follow gareyso casharkan aad share iyo like aad isugu darto insha Allah. Today maanta waxa ay tahay June 26 June. The whole country guud ahaan waddanka of Somalia ee Somalia is celebrating waxa looga dabaaldegayaa the great day maalinta weyn of freedom ee xorriyadda. And all the people guud ahaan dadka ama shacabka leaders hogaamiyaasha singers and fanaaniinta young people dhalinyarada ayaa la yiraahdaa young people children caruurta old people duqowda and all iyo guud ahaan the Somali nation ummadda Soomaaliyeed nation waa ummad ama qaran are celebrating waxay u dabaaldegayaan this important occasion munaasabadan muhiimka ah occasion waa munaasabad la socomidaana waayahay July 1 kowda July ama kowda Luuliyana we will celebrate waxayna u dabaaldegi doonaa the anniversary and sanad gurada of the Independence Day maalinkii xorriyadda of Somalia ee waddanka Soomaaliya and the unification iyo midoobidii of the north and south regions and midoobidii gobolladii koonfureed iyo waqooyi north waa waqooyi southna waa koonfurta regions waa gobolladii maalinkii ay midoobeen gobollada ayaynu u dabaaldegi doonaa kowda July haddii ay baweyne una gaarsiiyo haddaba labadan qormo ee soo socoto waxaan kugula wadaagi doonaa hambalyadii uu ummadda Soomaaliyeed la wadaagay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre madaxweynaha intan ayuu la wadaagay shacabka intanna waxaa la wadaagay halahanna waxaa soo qoray ra'iisul wasaaraha balse iyagoo af Soomaali ay ku soo qoreen maadaama ay Soomaali nahay annaguna si aan erayada siyaasadda ah ee Ingiliishaan ugu barano English ayaan u soo bedelay iyagoo af Soomaali ahaan bay u soo qoreen aniguna dadka ku xiran barahiga bulshada ayaan jeclaystay inaan English ahaan ugu soo bedelo waayahay madaxweynaha ayaan ku hormarinaa madaxweynuhu wuxuu yiri I congratulated all the Somali people on the occasion of commemorating the 63rd anniversary of the free Somali flag being raised in Somali territory, especially in the northern regions. Somali people should think about 100 years after independence. What kind of Somalia will we celebrate? A beautiful and stable Somalia that will be appreciated by those who will celebrate it is what we wanted to implement. And I congratulated waxaan u hambalyeynaya buu leeyahay all the Somali people guud ahaan dadka Soomaaliyeed on the occasion munaasabada of commemorating xuska the 63rd sano anniversary guuradii 63 sano guuradii of the free Somali flag ee calan Soomaali oo xor ah being raised laga taago in Somali territory dhul Soomaaliyeed especially qaasatan in the northern regions gobolada waqooyi Somali people dadka Soomaaliyeed should think waa in ay ka fikiraan about waxyaabaha ku saabsan 100 years boqol sano after independence boqol sano kadib xorriyadda madax bannaanida aan dhahay waa inay ka fikiraan boqol sano kadib waa inay ka fikiraan madax bannaanida what kind of Somalia nooce ah ayaan will we celebrate u dabaaldegi doonaa boqol sano kadib bal Soomaaliya nooce baan u dabaaldegi doonaa qofka Ilaahay cimri siiyo a beautiful and stable Somalia xasiloon oo qurux badan that also will be appreciated ay ka mahad celiyaan by those who will celebrate it u dabaaldegi doonaa boqol sano kadib qofka Ilaahay cimri siiyo ee u dabaaldegi doona waa inuu Soomaaliya qurux badan oo xasiloon u dabaaldegaa buu leeyahay ayaa waxay tahay marka waxa ay tahay what we want waxa aynu doonayno to implement in aan fulino ama aan dhaqan galino
waxaan ku soo gabagabeynayaa hadalkii ra-iisul wasaaraha wuxuu leeyahay I pray to the Lord waxaan u baryaa buu leeyahay rabbi to give inuu siiyo his mercy naxariistiisa to all the veterans guud ahaan rugcadayaashii ama halyeeyadii erga veterans waa rugcada ama halyey kuwaasoo fought for the freedom usoo dagaalamay for the freedom xurriyadda which we have taasi aynu haysano today maanta that was celebrated taasoo loo dabaaldegay in 1960 tonight caawa in our country waddankaynu especially qaasatan in the northern regions gobollada waqooyi since maadaama I was and aha one of the pilgrims mid ka mid ah xujayda pilgrims waa xujayda dadka xajinaya performing ee gudanaya the xajka gudanaya this year sanadkan I pray waxaan u baryayaa buu leeyahay to the Lord rabbi waxaan uga baryayaa for our country waddankayna and our people iyo dadkayna to bring inuu u keeno progress horumar and lasting prosperity iyo barwaaqo waarta haddaba erga lasting waa wax sii jira waara prosperityna waa barwaaqo ama baraare the enemy cadowga who kaasoo is harassing dhibaataynaya our people dadkayna and our country iyo waddankaynana let's come together aynu si wada jira isugu imaano aynu wada jir u noqono buu leeyahay to achieve si aan u gaarno progress horumar and prosperity iyo baraare hal mar ayaan dulmarayaa iyadoo English ah ciwaanku waxa weeye waa topic about the Independence Week of Somalia today is June 26. The whole country of Somalia is celebrating the great day of freedom. All the people, leaders, singers, young people, children, old people, and all the Somali nation are celebrating this important occasion. July 1, we will celebrate the anniversary of the Independence Day of Somalia and the unification of the North and South regions. I congratulated all the Somali people on the occasion of commemorating the 63rd anniversary for the free Somali flag being raised in Somali territory, especially in the northern regions. Somali people should think about 100 years after independence. What kind of Somalia will we celebrate? A beautiful and stable Somalia that will be appreciated by those who will celebrate it is what we wanted to implement. I pray to the Lord to give His mercy to all the veterans who fought for the freedom which we have today. That was celebrated in 1960, tonight in our country, especially in the northern regions. Since I was one of the pilgrims performing the Hajj this year, I pray to the Lord for our country and our people to bring progress and lasting prosperity. The enemy who is harassing our people and our country, let's come together to achieve progress and prosperity. guud ahaan halkaas ayaan kusoo afmaraya saaxiibayaal waxaan kaa codsanayaa inaad cashirka aad taageerto muuqaalka xiga intii laga gaaray waxaad kaga tagay sidaas iyo amaana Allah